بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسر صاحب يالهالكن وحلك وررك كسو دوادا ورك حلك وررك قضبضا داون دونتان وحاكمدا شركة حبناها قولها ودتشيك قرن وكدا فرمان مقالة مقدشو dood adag oo miiska saaran isbedel lagu sameeyo heshiiskii 17 September iyo guud ahaan qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi ayaa faahfaahin kaga haynaa qalalaasaha ka soconaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo faraha ka sii baxaya dagaal hor la soo wariyay odayaasha dhaqanka oo eedeyn kul u jeediyay maamulka Hirshabelle tafaasiil dheeraad ayaad ku daawan doontaa saaxiibayaal qodobada kale aan idin hayno waxa qayb ka noqonaya askari ka tirsan booliiska Soomaaliya oo wiil dhalinyaro ah oo mooto bajaaj ku shaqaysanaya $1 ugu dilay Muqdisho sababtu maxay tahay xogtiisa barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale qodobada idin hayno waxa qayb ka noqonaya xaaladda Puntland iyo Somaliland oo si adkaatay dagaalkii ka soconaya halka loo yaqaan saax meegaaga oo faraha ka sii baxaya iyo wufuud kala duwan oo ku soo qulqulaysa ayaad ku daawan doontaa saaxiibayaal xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradkana waxa la sheegay in khilaafkoodu si adkaaday iyadoo si toos ah qadadka telefoonka xubnahan oo iskala xiriiray isku sheegeen in looga baahan yahay waqtigan ay kala baxaan ama ay ku kala tagaan halkaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaa saaxiibayaal qodobadaasi kuwa kale ayaad ku daawan doontaan xulka wararka fadlan haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biro subscribe saar like na share la wadaag saaxiibada aragtaadana waa inoo muhiim commentiga noogu reeb waxaase naga xasuusina haddii aad joogto waqtiga salaada inaad soo gudato waajibka rabbi kadibna aad dib ugu soo laabato daawashada muuqaalkan qodobadii aad daawateen oo dhammaystiran u diyaar garoob ah aynu ku bilowno shirka u dhaxeeya xubnaha golaha wadatashiga qaran ayaa maanta ka daafurmay magaalada caasimadda ee Muqdisho shirkan oo shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa goobjooga dhammaan hogaamiyaasha dowlad goboleedyada shanta ah iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka xubnaha golaha wadatashiga qaran waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha doorashooyinka dalka xal u helista qodobada muranka uu ka taagan yahay dhamaystirka doorashooyinka dalka iyo isbedel lagu sameeyay heshiiska 17 September oo qodobo badan ay doodi ka soo laabatay xubna ku dhow Villa Soomaaliya ayaa sheegay in dooda ugu adag ay ka imaan doonto in isbedel lagu sameeyo magaalooyinka lagu qabanayo doorashooyinka oo dowlad goboleedyada haatan laba magaalo ay waastaysan tahay hase haatee xubnaha golaha wadatashiga qaran ay qorsheynayaan in hal magaalo lagu soo koobo sidoo kale qodobada waxaa qayb ka ah in la go'aamiyo waqtiga rasmiga ah ee la soo gabagabeynayo doorashooyinka dalka afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu oo saxaafadda ka soo hormuuqda ayaa sheegay in ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dhinacyaduna iska afgarteen dhamaystirka doorashooyinka iyo dardargelinta qodobada la isku maandhaafsan yahay ee waqtigan muhiimka ah hogaamiyaasha shirka ka qayb galay ayaa sidoo kale rajo wanaagsan ka muujiyay isfahan laga gaaro shirka golaha wadatashiga qaran ee caasimadda dalka ka soconaya waxyaabaha la xusi kara waxaa qaybka shirka uu ka soo muuqday hogaamiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo horay guud ahaanba u qaadacay ka qaybgalka shirkan isla marhaataana qaray inuu ka qayb gali doono shir uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo aan loogeen waqtiga uu qabsoomi doono si kastaba shirka ka daafurma magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa qayb ka ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firishkaasi oo aan in badan ku lahayn saameyn iyo dhaqdhaqaaq shirkani hogaamiyaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa cadaadinaya in hal magaalo lagu soo koobo maadaama magaalooyin ay garbahaare qayb ka tahay doode adag ka taagantaa sidoo kale maamulka Hirshabelle ayaa la magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan doodahan oo idig ayaana la filayaa in marka uu la soo gabagabeeyo war-saxaafadeed laga soo saaro shirka xubnaha golaha wadatashiga qaran kaasi oo go'aaminaya doorashooyinka dalka halka loo dhaqaaqayo iyo sidoo kale waqtiga rasmiga la soo gunaanadayo doorashooyinka dalka dhinaca kale markaanu eegnana saaxiibayaal xaaladda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa faraha ka sii baxaysa waxaana sii soconaya qulqulatooyinka laga soo warinayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa toogasho ku dilay ruux rayida duleedka magaalada Beledweyne taasoo dib u soo cusboonaysiisay dagaalka u dhaxeeya ciidamada ka tirsan kuwa Hirshabelle iyo ciidamada kale oo hogaaminaya sargaalka lagu magacaabo Nuur Dheere ciidamadan oo intooda ugu badan hab qabiilad u abaabulanaya dagaalka ugu culus waxa uu ku dhex maraya duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo kale maalintii labaad waxaa magaalada caasimadda waa gobolka Hiiraan ka soconaya qalalaasay iyo dibadbaxyo xooggan oo ka dhana hogaamiyaha dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaas oo lagu muujinayo sida ay kaga xun yihiin hogaamiyaha isbedel doonka gobolka Hiiraan General Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo BBC da la hadla ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka dhisaan
maamul gaar ah gobolka Hiiraan isla markaana aysan qaadan doonin waxa ugu yeeray Hirshabeellada la dhoodhoobay sidoo kale waxa inta hadalkiisa ku sii daray inay qaadi doonaan weerar iyo dhul oo ka dhan ah hoggaanka sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo ku sugan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay muhiimadda gaarka ah ee leedahay in hoggaanka dowladnimada uu ka shaqeeyo magaalada Beledweyne sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo isdaba joog ah isla markaana ay qaadi doonaan weerar lagu soo afjarayo waxa ugu yeeray qowleysato ka shaqeysanaysa gobolka Hiiraan xaaladda gobolka Hiiraan ay kasii horeysa siyaasiyiin kala gedisan oo ugu horeeyay wasiirka hore waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ku digaya in loo baahan yahay muhiimadda in la saaro in la joojiyo xabadda dagaalada si cuslaanaya ee ka soconaya gobolka Hiiraan ayaana xaalad mugdi ah gelinaya guud ahaan xaaladda ka taagan gobolkaasi iyo guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle warkayga bartamiisa ayaa daawanaysaana markana aanu eegno askari ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa wiil dhalinyaro ah ku shaqaysanaya mooto bajaaj waxa uu $1 ugu dilay magaalada caasimadda ay Muqdisho sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir askari ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa wiil dhalinyaro ah ku dilay halkaasi wiilka la dilay oo mooto bajaaj ku shaqaysan jiray ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdi Cadceed waxaana la sheegay in loo dilay $1 askariga oo meesha taagnaa ayaa la tilmaamay inuu ku amray in $1 uu u tuuro balse uu ka dhaga adeega wadaha mooto bajaajka intaasi kadib muran daqiiqada dhexmaray labada dhinac ayaa sababay in askariga ka tirsan ciidamada booliiska uu rasaas ooda kaga dhago wadihii mooto bajaajka oo ugu dambeyn halkaasi ku geeriyooday qaar ka mid ah ehelka wadaha mooto bajaajka iyo ciidamo ka tirsan dowladda ayaa goobta gaaray waxaana goobta laga qaaday meydka askarigii goobta lagu dilay ayrahdee wadihii mooto bajaaj ee la dilay askariga ayaa la sheegay in lagu raad joogo balse aan weli lasoo qaban maalmihiina dhaafe caasimadda waxaa kusii kordhaya dilalka bareerka ah ee loo geysanaya dadyago aan waxba galabsan gaar ahaana wadayaasha mooto bajaajka kuwaasoo intooda ugu badan ay fuliyaan ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya gabagabada usii dhawaanayna ee saaxiibayaal maamulka Puntland iyo ka Somaliland waxa ay weli isku sii cuslaynaya xaaladda ka taagan deegaanka Saaxmigaag la yiraahdo ee gobolka Sool wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya gobolka Sool ayaa ku waramaya in weli halkaas ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda maamulada Puntland iyo Somaliland wafdi orkacaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa gaaray deegaanka Saaxmigaag si halkaasi xal waare u kala dhex dhigaan labada maleeshiya beeleed ee dagaalamaya waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo simada ayaa ku howlan sidoo kale soo afjaridda xabadda ka holceysa deegaankaasi wararku waxay inta ku darayaan in Somaliland ay qadadka telefoonka kula soo xiriirtay Puntland iyaga oo kala hadlay xaaladda taagan wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hogaamiyaha Somaliland Axmed waa ninka lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi uu dhigiisa Puntland Saciid Cabdullaahi Deni kala hadlay dejinta xaaladda ka taagan deegaanada hoostaga gobolka Sool iyo soo afjarista xiisadda halkaasi ka taagan si kastaba xaalku aaday dagaalkan ayaa soo cusboonaaday 24 saac ina dhaaftay inkastoo la sheegay in ugu yaraan dhowrkii bilood ina dhaaftay xiisadda u dhaxaysa labada maleeshiya beeleed ee ka taagna deegaanada hoostaga gobolka Sool ee maamulada Puntland iyo Somaliland xuduudka ay wadaagaan dhaca ugu dambeyntiina saaxiibayaal xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho ayaa la sheegay inuu sii dhexmaraya khilaaf sii cuslaanaya xubnaha ku wada sugan magaalada caasimadda Muqdisho ayaa la sheegay in saacadiina dhaafay dhexmareen qadadka teleefanada kulamo ku dhacay kuwaasoo lagu muujinayo sida ay kaga xun yihiin tallaabooyinka la qaadayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa la tilmaamay si toos ah qadadka teleefanada kula xiriiray Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii dowladda ku-meel gaarka ahayd iyo sidoo kale Xasan Cali Khayre kuwaasoo labadooduba uu ku wargeliyay in aysan qancin tallaabooyinka u qaadayaan arrimaha doorashooyinka dalka siyaasiga ayaa la sheegay sidoo kale in madaxweynihii hore dalka Xasan Sheekh Maxamuud uu la wadaaga fariin la xiriirtay in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin looga adkeysanayo in la iska soo afjaro dhinacyadan iyo tallaabooyinka u qaadayaan hogaamin ka qayb ahaanshiyaha midowga murashaxiinta mucaaradka si kastaba xaalku aade tallaabada madow ee dhinacyada soo kala dhexgalaysa ayaa la arkaa inay fursad u tahay filla Soomaaliya iyo madaxweynaha waqtigu uu ka dhamaado kuwaas oo ku maadsanaya tallaabooyinka soo kala dhexgalaysa ama mugdiga kasoo dhex cusboonaanaya xubnaha midowgaasi ku dhex jira warkaad ka daawanaysan xulka wararkan waa inaga intaa saaxiibayaal fadlan haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biro subscribe saar like share la wadaag saaxiibada aragtaada waa inoo muhiim commentiga oo san ugu reebtan kulan dambana nabaday